السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeeni ugu horeeyay waa barnaamijkeeni subaxnimo waa barnaamijkii koobaad aan idin soo gudbinaynay wararkii ugu waaweynaa ee soo kordhay intaynu kala maqnayn ayaynu barnaamijka ku faahfaahin doonaa xalay ilaa saakay maxaa soo kordhay oo dhacay arrimaha bariga dhexe Trump oo u muuqda inuu gacmaha taagay kadib markii uu aqbalay inuu heshiis cusub la qaato Iran si loo joojiyo iska horimaadyadii maalmihii la soo dhaafay dhexmaray isaga iyo Iran taloma sii joojin doona mise wax kala ku soo dhici doona odaga maxaase keenay xilligan inuu aqbalo in markaasi wada hadaladii dib loogu laabto dagaalka iyo rabshadana la joojiyo haddaba warbixin cajiib ah oo laga qoray arrinkaas ayaanu barnaamijka ku eegi doonaa Suuriya oo saakay dunida u qayla dhaaminaysa war Israa'iil hana laga qabtay ku haysa sheeko cajiib ah oo iyadana Suuriya haysata waalidin haya waasoo kale aan idin soo gudbin doonaa Netanyahu oo sheegay godkii ugu weynaa Hezbollah mid kamid ah godadka ugu waaweyn Hezbollah ee koonfurta Lebanon inay burburiyeen ciidankiisa laakiin intaanay Hezbollah hiba jawaabin wasiirka tirsan dowladda Lebanon oo si la yaab leh hadalka uga jawaabay haddaba wararkaas muhiimka ah oo saakay warbaahinta ay ka hadlayaan ayaynu barnaamijkeena ku soo gudbinaynaa inta aan ku jirnana wixii akhbaaraad ay soo dhacaan idin la socodsiin doona kulanti wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeena ugu horeeya waa barnaamijkii koobaad saakay oo isniin aan idin soo gudbinayo taariikhduna waa 29 bisha 6 2026 warar waaweyn oo soo kordhay saakay ayaynu barnaamijka ku faahfaahinaynaa ugu horeyn waxaanu ku bilaabaynaa ninkii Trump ahaa oo u muuqda inuu gacmaha taagay sidoo kalena aqbalay in mar kale wada hadallo foolka foola ay isugu yimaadaan iyaga iyo Iran oo markaa xaaladda taagan la qaboojiyo kadib laba habeen oo isxigay oo labada dhinac ay weeraro isku asqaysiiyeen haddaba Trump maxaa ka keenay arrinkan waa tii labadii habeen oo la soo dhaafay isaga uu bilaabayay weerarka culayska xaguu ka yimid haddaba dhammaan warbixinadaasi wixii laga qoray ayaynu barnaamijka ku faahfaahinaynaa haddaba ugu horeyn waxaynu ku bilaabaynaa Al Jazeera waxay leedahay Mareykanka waxa uu qaatay go'aamo muujinaya inuu joojiyay dhammaan hawlgalladii dagaal ee uu kula jiray Iran wargeyska weyn ee la yiraahdo Axios ayaa soo xigtay mas'uuliyiin sare oo ka tirsan Mareykanka Washington iyo Tehran waxay ku heshiiyeen xalay in la joojiyo weerarada la isdhaafsanayo sidoo kalena kulan la isugu yimaado isbuucan haddaba wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in dhinacyadu ay go'aansadeen inay joojiyaan gacanka hadalka kaasoo Mareykanka uu sheegay in iyagu ay yihiin kuwo go'aansaday inaanay la dagaalamin mar kale Iran Washington iyo Tehran ayaa waxay ku kulmi doonaan sida lagu heshiiyay xalay talaadada lagu soo aadan oo berita ah magaalada Doha si markaa loo dhameeyo khilaafadyada ka jira marin biyoodka Hormuz marka ninkii Trump ahaa wuxuu leeyahay wax allaali wixii hawlgallo dagaal iyo waa joojin talaadadana waxaa la kulmaynaa wada hadal Doha lagu qabanayo arrintan Hormuz ee soo noqnoqotay haddaba marka arrintan Hormuz maxay tahay ciladeeda oo dagaalka labadan habeen oo la soo dhaafay ay labadan Iran iyo Mareykanku ay jugtiisa gelinayeen Iran waxay leedahay annaga heshiiskii maaragtay la gaaray heshiiska maaragtay qabyo qoraalka ahaa oo aan wali la dhameystirin isfahamka ahaa ayaa waxay yiraahdeen wuxuu noo ogolaanayaa qodobkiisa shanaad inaan annagu meesha maamulno amnigeeda securitygeeda waxeeda laakiin inaynaan wax cashuura qaadin muddo 60 maalmood xaqaan u leenahay inaan niraano wadadan ma mari kartid halkan soo mar markabka hadduu diidana jugta ka gelinayna marka
maraykankuna wuxuu leeyahay awooddaas ma lihidin waxa ilaaliya laydin yiri inaad dadka u sheegtaan oo tiraahdaa miinooyinka meelaha ku jira iyo waxaan waaye laakiin marka meel wanaagsan soo maraya oo meel wada fiican soo mari kara ma celin kartaan marka buuqa marka meeshaas uu ka soo bilowday oo maaragtay haddaan idin tuso waxaa qoraysaa saakay jaridada la yidhaahdo New York Times ayaa saakay qoraysa waxay leedahay isfaham la-aan heshiiskii la gaaray ayaa waxa uu keenay in dib loogu laabto dagaaladii iyo dhibaatadii maalmihii lasoo dhaafay dhacayay jaridada New York Times waxay leedahay haddaba duqaymihii habeenadii lasoo dhaafay ay isweydaarsadeen maraykanka iyo Iiraan waxa uu ka dhashay isfahmi waa iyo mugdi ku jira heshiiska iyadoo la sheegayo dhinac walba sida isagu ay la tahay inuu wixii u fasirtay marka dhinac walba soo isagu rabo u fasirtay leedahay jirad maraykanna wuxuu leeyahay idinku awooddaas ma lihidin iyadoo waxa leedahay qodobku noogu qoray anaga awoodda iskale marka hadda dib waxa loogu laabanaa qodobkii shanaad talaadada Brito magaalada Dooxa waxa loogu ballamay inaan xabad kale la isku ridin oo bal wixii maaragtay meesha ku qornaa la isku raaco Iiraan waxay tahay qodobka saa u qoray maraykan wuxuu roomo noo sheega ninkii Trump markuu waa wareen labadii habeen oo dagaalka dhacay maxaa sababay shidaalkii kacay wax kasta kacay ma carabtii qayle bilaabeen Bahrayn nagta laga saaray Kuwait la duqeeyay saldhigyadiisii la garaacay wixii oo dhan cabaadkii isqabsaday hadda wuxuu yiri roonay kana ilaaf haddana ka joogno odaga haddana waxba madaxa soo maraya hal weeraro iska leey ma la aamini karo asaga hal weerar markuu dhoo ayada hal iska celiyo ma sugayaan bay nabadka ilaalada kacaankeeraan amar haystaanba haddii America yimaado ama cid kale soo weerarto Iiraan inay iyaguna jugta ka geliyaan ayatullah ma la weydiinayo taas marka sheekadaas marka waxa loo balansan yahay talaadada Brita in maartay Dooxa la isku arko bal qodobkan la isku mari waayay oo nin walba si u fasirtay oo labadii habeen soo dhaafay jugta la isaga geliyay oo marin biyoodkii Hormuz xaaladiisu ay xun tahay ayaa marka saasa marka waxa leeyahay inta bal talaadada laga gaarayo hawshu ha sii socoto hawshu maraakiibtii wixii sii maraan talaadada marka hal is arko sidaas marka shaqadii ku sii socotaa la leeyahay bal haday marka wax soconayaan marka qodobka isaguna halkaas ka gudbayna sheeko kale oo cajiib ah jirta nimanka Israa'iiliyiinta ah imtixaan waay dad carabtan Israa'iil ilaahay ku imtixaaray waxay ka qeylasiinaysaa Lubnaan waxay ka qeylasiinaysaa reer Gaza hadda Suuriya saakay afkii furad war qaramada midoobay war adduunkiyo war nimanka ayaa naga qabta marka nin wax fala qeyriyay wuxuu yiri war nimanka ayaa naga qabta may ku qabsoomayaan nimankan hana la ka qabto baba ku qabsoomaan nimankan hana la kala qabto ayaguna jug ha gaarto adigana jug gaarsi ka waabteen maahan haday fursad kugu helaan wallahi ka taay wax ka celin kara bijira way ku dul fuulaanayaan baatan marka saakay Suuriya cabaadka ka baxay markaas carabtii kale waxay leeyihiin mar boqolaa laga cabaadina nimankan waqtigoodii ma la gaarinay leeyihiin 2027 markii la gaaro waxaa sheegay Sheekh Axmed Yaasiin waxaa carabtoo dhan hadda akhristaan nimanka waxaa la gaaray gabagabadoodii boqolkoodii sano waa dhamaanaya boqolkii sano maraa nimankan hadda mid walba isku taag xagga ka dhac haddaba marka Suuriyaanka saakib maxay sameeyaan idin akhriyo haddaba warkii ugu weynaa waxa leeyahay Suuriya waxay dalbanaysaa in loo soo dhaqdhaqaaq caalami ah in adduunyadu ay u soo gurmato si loo joojiyo weerarada Israa'iil ay ku hayso dhulkeeda haddaba warbixintu way sii socotay waxa leeyahay wasaaradda arrimaha dibadda ee Suuriya saakay waxay soo saartay war ay leedahay Israa'iil waxay sameynaysaa xadgudubyo iyadoo bartilmaameedsatay gobolada kala ah Qunaydra iyo Darca oo ku yaala koonfurta wadanka Suuriya
waxay sheegtay in Israa'iil ay duqeymo ka samaysay halkaas madaafiic ay ku riday sidoo kalena waxay argagax gelisay dadkii rayidka ahaa ee ku noolaa halkaas waxay ku soo garaacday sawaariiq waxay soo kale ku tumatay qarannimada Suuriya midnimadeeda iyo dhuleed ayay ku soo xadgudubtay waxay ugu baaqayaan maanto Isniin ah in qaramada midoobay iyo caalamkuba in markaasi la ilaaliyo qawaaniinta caalamiga Israa'iilna laga qabto si aysan dhibaatada u sii wadin Israa'iil meel uga baxayna ma leeyihiin Suuriya Lubnaan Gaza dhulka dhan naga ku feesteenayna waa meesha aan rabnay dhahan inaan ku ballaarsannaba Israa'iilka oo dhulkaan oo dhan aan carabtaan oo dhan aan maartay afka ka garaacno Suuriya marka waa qaylinaysaa war adduunkiyo qaramada midoobay iyo adduun haday wax tarayaan Gaza ka celin lahayd meesha nimanka Iiraan oo kala rabaan sideedaba nin oo taqriir qoray oo caraba wuxuu leeyahay waxaan ogaanay uu leeyahay nimanka wax iska dhicin karaba nimanka sunniga waxba ma taraan uu leeyahay ayaga bas islu gooy nimanka shiicada ah nimanka iska dhicin karo uu leeyahay wuxuu leeyahay nimanka shiicada u fiirsado uu leeyahay Hezbollah Iiraan iyo Houthi nimankaas jugtay ka geliyaan waxa sunni oo dagaalamay oo tabar waayay reer Gaza ka jiro leeyahay inta kale waa cawaadayaan afkaas ay kala taagayaan waana la soo galayay adduunkii qaramada midoo xagee joogtaa iyo adduun ma jiray leeyahay hadday wax dadka celinayaan mar hore go'aamadii qaramada midoo soo saartay yaa ku dhaqmay markii dagaalkii Gaza socday ha sheegay marka nimanka cabaadkoodii yaa baxay qodobka kale ee saakay wararka cusub ka mida ninkii Netanyahu ahaa wuxuu yiri waxay ciidankaygu ku guuleysteen inay burburiyaan god 200 mitir ah oo dhulka hoostiisa oo ay isticmaalayeen Hezbollah koonfurta Lubnaan godka marka waxa ku jiray huba ku jiray sawaariiqa ku jirtay ayagiya ku jiray waxbuu daldalay marka godkaasu sax miya mise sax ma marka hore aan tuso odayo ka hadlay arintaas haddaba wuxuu leeyahay Netanyahu Israa'iil waxay burburisay dhulka hoostiisa god ku yaalay oo Hezbollah ay lahayd dhererkiisuna uu ahaa 200 mitir wuxuuna ku yaalay koonfurta Lubnaan haddaba ciidamada Israa'iil waxay burburiyeen uu leeyahay godkaas oo 200 mitir ahaa koonfurta Lubnaan haddaba wuxuu sheegay ra'iisul wasaare Netanyahu iyo wasiirkiisii gaashaandhigaba labaduba waxay sheegeen in godkaasi la burburiyay haddaba waxaa la yiri godkaas waxaa loo isticmaalayay hubka iyo walxaha kale oo ay halkaa ku qarsanayeen nimankan la yiraahdo Hezbollah runmiya marka hadalkaas godka ma burburiyeen god hub ugu jira Hezbollah may burburiyeen Hezbollah intay jawaabinba waxaa soo booday dawladii Lubnaan wasiir dawladda ka tirsan Lubnaan waa nimankii heshiiska Washington ku soo galay waa labtirku nimankii waxay leeyihiin war waxaan noo been badanaa kan Netanyahu iyo wasiirkiisiba beenta socota maxay tahay adduunka yaa been loo sheegaa godka ay burburiyeen maxay tahay wasiirkii afku furtay heshiis saxaba meesha ma yaalo dad wada wareersanaa inta isqabtaane beerka iska tumaayeen haddana ayaga la joojinaayo hadda kolley waxay ku ballansan yihiin talaadada inay isugu tagaan doox waxa ka soo bixi doona lama yaqaano haddana intaan talaadada la gaarin isku bilaabayaan hadday rabaan marka xaalku marka halkaasuu maraya wararkaasu waxay ahaayeen kuwii ugu waaweynaa ee saakay saarnaa warbaahinta oo aanu idinla wadaagnay haddaba fakarkiina iyo aragtidiina waa muhiim adiguna barnaamijka ka qayb qaata dad badan oo fariimo noo soo qora aragnaa aad ugu mahadsantihiin barnaamijkana like gareeya oo share gareeya dadka daawada iyo dadka like gareeya iskuma dhigmaan marka fadlan barnaamijyada like gareeya ninkii fakar dhiibo kara fakarkiisa ka dhiibto marka barnaamijkii subaxnimo saakay inta ayaanu kusoo gabagabaynaynaa haddaba barnaamijka haddaad ku cusub tahay channelka subscribe ka ilooba youtube-ka facebookna follow garay inta aan mar kale barnaamij kale ku kulmayno asxaabay nabadgelyo